waxaa habeen ka hor fariisinka ay ku lahaayeen gudaha magaalada Bacaadweyne ee gobolka Mudug Faarajiyay ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 11aad halkaas in muddo ay ku sugnaayeen isla markaasna dagaal xoogan ay kula galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab ciidamadan oo watay dhowr gaari oo teknika ay u raqaansadeen dhanka deegaanka ka tirsan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug halka kuwa kalena ay qabteen dhanka deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud ka bixitaanka gudaha Bacaadweyne militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 11aad ayaan loogeyn laakiin ila xogaale ayaa xaqiijiyay in amar u imaaday dhanka madaxda dawladda federaalka ay keentay in iska baxaan gudaha gobolka Mudug si gaar fariisinka ay ku lahaayeen gudaha magaalada Bacaadweyne ee gobolka Mudug maamulka magaalada Bacaadweyne ee gobolka Mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in waxba ka ogeyn waxa keenay in militariga Soomaaliya ka baxaan gudaha Bacaadweyne isla markaasna baqatin badan arrinkan ay ku abuurtay maamulka iyo shacabka deegaanka oo ay dagaal kula jira dagaalamayaasha Shabaab xogayaha maamulka magaalada Bacaadweyne ee gobolka Mudug ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Bacaadweyne ku sugan muddo badan aysan waxba ka qan waxyaabihii deegaanka loo keenay waxa sidoo kale uu sheegay in madaxda Galmudug iyo madaxda dawladda federaalka looga baahan yahay in jawaab ay ka bixiyaan ka bixitaanka ciidamada gudaha magaalada Bacaadweyne ee gobolka Mudug asii ka jirta waxa weeye shacabka ayaa awalba dirirayay shacabna go'aan waa dirir wada abaar iyo jidaal iyo dhibaato ku dhacday inuu macnaheedu dagaal mamnuuco kana dhiibo ay meel kasto ay gacan saar la sameeyaan bay ku qasban yihiin duruufta ku kalifaysa shacabku waa shacab waana loo tali karaa intay ku meel gaar ku siin lahaayeen waa ku siineen qaladkii dhaca iyo wixii dhibaato dhacayna qaranka mas'uulka maadaama intaas oo hal sano uu tilaab ka qaadi waayay maxamed Saciid Axmed Cali xogayaha maamulka Bacaadweyne waxa sidoo kale uu sheegay in ku qasban yihiin inay joojiyaan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha Shabaab kadib marka dadka deegaanka ay abaar xoogan soo wajahday suuragalna aysan xilligan ahayn in Shabaab Bacaadweyne ka difaacaan militari ka caawilana ay ka bixin gudaha Bacaadweyne ee gobolka Mudug asii ka jirta waxa weeye shacabka ayaa awalba dirirayay shacabna go'aan waa dirir wada abaar iyo jidaal iyo dhibaato ku dhacday inuu macnaheedu dagaal mamnuuco kana dhiibo ay meel kasto ay gacan saar la sameeyaan bay ku qasban yihiin duruufta ku kalifaysa shacabku waa shacab waana loo tali karaa intay ku meel gaar ku siin lahaayeen waa ku siineen qaladkii dhaca iyo wixii dhibaato dhacayna qaranka mas'uulka maadaama intaas oo hal sano uu tilaab ka qaadi waayay dagaal qasaare kala duwan dhaliya ayaa tirada jeera koonfurta gobolka Mudug ku dhaxmaray ciidamada dadka deegaanka oo gaar militariga iyo militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 11aad iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab ma jiraan wax war ka soo baxay Galmudug iyo saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya oo ku aadan ka bixitaanka ciidamada militariga Soomaaliya gudaha Bacaadweyne oo gobolka Mudug ka tirsan